kulanti waxaan wanaagsan idilkiinba akhyaarta aanu hawada ka wada socono meelad joogtaanba waxaanu idin leenahay cawisi wanaagsan inta ay cawiska u tahay inta ay maalinta u tahayna waxaanu leenahay maalin wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii toddobaadlaha ahaa ee garwaaqso barnaamijkeena alaba idinka yimaada xarunta guud ee telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa barnaamijkeena toddobaadkana waxa inoogu martiya oo barbarkayga ab midig taagan mudane Xaashi Ismaaciil oo ah siyaasi xeel dheere qurbo joog reer Soomaaliland ah oo in badan siyaasadda guud ahaan Geeska Afrika oo darasa gaar ahaan Soomaaliland Master Xaashi aad ayaan kugu soo dhaweynaynaa barnaamijkeena garwaaqso aniga iyo daawadayaasha aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمعو هذه هي برنامج كجرواقصو يجودهان بتيفيجا قرن كسومالان يدا وضيع شباب وان سلامة يا وندوه هاي وشيكي سننا هاي حاشي كله إمك قرب شوق ما تيجي مال بعد سكت يرسى قرب شوق نمدي هذا قرب شوق بعد هذا إم بدن مكون دل شوقتي كله ذلكنا رقراق غير فربنا أيها كسعداء أو تلابوين بدن أو حاجة هرمركا إيو محل النبضين إيو معركة دورشوين كيو حيوان بدن أو خور اللو قاضي أو تلابوين أقوله أيها سعداء جودها مركز إنه كشيء كيسانو مهم كلاقات قاضي دوناي بل سجود هذيكو نوشيء يا بالحالة ذلك ما تقول مريو بسم الله الرحمن الرحيم خورت ذلك سومالان نمعوي هذيكا أنت ديكو كورتاي شريتان كسومالان wax ku baratay baa runtii kama war leedin laakiin hada goor barnaamijyada noocan oo kala marka la sameeyo wuxuu baynu ku dadaalaynaa marba hadii social media ama warisgaarsiintii aan sidoo hore u ahayn waxa kamaysan ama yar ay noqotay qof walba inay halkiisa ku gaadho isla markaana gaaristaas ay keento qof walba in qofkii doonaa uu waramo ay barnaamijkan runtii garwaaqsi ah sameeysan oo kale wuxuu kabayaa itaalkiisa ama uu ka daba tagayaa warar si khaldan u fida oo dacaa waxaan la soconaa inaan telefoonkan sito waxaan doonaa intaan ku duubo ama Facebook dhigi karo ama WhatsApp dhigi karo ama meel kale dhigi karo war ummado dhan oo nabadana aan colaad gelin karo ummado colaadna hadan dawladda ku heshiisin karo marka runtii horta barnaamijkan oo kala waan soo dhaweynaa asaasan u taageerayna waana barnaamij muhiim ah kuwa la midka ana ama wixii u dhowna in la xoojiyo ayaan runtii jeclahay TV-ga qarankana waan ku amaanayaa guud ahaan dalka anigu waxaan joogaa sanad iyo bil ayaan u malaynayaa markayga hore si wanaagsan baad ii sheegto magaca qurbo joog anigu isuma aqaano isumana taxkiliyo halkan aynu wareysiga ku duubaynaa waa masalihi anigu waxaan koreeyado xiriyaha ariga ah meeshii aan iyadoo xirada ariga ka tagay aan ku soo noqday in makana fadhiyo haddaan iska dhigo qof kale aniga nacasnimo ay tahay waxaan ka marxaati kacaysaa hawlgabka
halkii igaga beegneed aan ka maqnaa baan garanaya markaan aa qurba joog horta waxaan garanaya inaan ahay nin hawshiisa ka maqnaa second ma jecli inkastoo hay-ad iyo wax walba dee loo sameeyo aan taageersanaa haddana ereyga qurba joog laftiisa in si khaldan loo fahmay oo waxaan idhahdaa anigu waa qabyaalad inagu cusub inagoo teennii horeba la ciirciirayna habrihii iyo beelihii iyo wixii ayaa haddana intii yaraydee laysu soo dhoweyn lahaa iyo dadkii la rabay dibadda markay ka yimaadaan in ay si kale u fakeraan qurba joognimada waxay noqotay derajo qof kastaa mid wax og iyo midaan wax ogeyniba sheegtoo qurba joog baan ahay saasaan dabeetana uga cararo anigu waxaan idhahdaa xaashigaygii baan hodda meeshiis ku soo noqday aadna waan kugu ammaanaya dalku markaan ka run sheego ilaahay baa imaqlaya aniga 2013 baa iigu horreysay soo noqod 14 baan haddana soo noqday haddana 15 baan ku soo noqday maalinba maalinta ka dambaysa waddanku horta horumar buu gaarayaa horumarkaana waxa kow ka ah dad badan waxa carabka ku dhuftaan oo ay yiraahdaan dadkaa samaystay dad oo dhan horumar bay jecel yihiin laakiin meel aan hab jirin ama system jirin cidina waxa ma samaysato xamar taagteenuba ma horumarnaba geedahani meeshaynu taaganno kale hadday helayaan xilligan aynu duubayno imika warka waa 12 habeenimo yani ilaahay amarkiisa wuxuu inagu yimaado mooyaan wax kale ka biqi mayno waxa kow ka markaa mar walba dawladihii soo jiray midaba itaalay lahaydba oo qori isu dhiibo horumarka dalkuna uu la talaabsanay madaxweynebana waqtigiisu ku soo beegmay waxa mar labaad ammaanta leh guud ahaan shacabka Soomaaliland oo aanan kala saarin oo jecel horumarka dalkooda u soo horo wax walba hadday daba joogaan hadday guda joogaanba runtii aad mas'uuliyad dheeraada isaga saara inkastoo aynaan weli halkii aynu rumida wada taaban karin mar qura inta saddexaad had iyo goor waxaan maqlaa dad le 25 sano meel la umaynaan dhaqaaqin mala 25 sano oo qof caadi ah bay tirinayaan 25 sano oo dawladnimo mala hadii la qiimeeyo 2 saacadood badhna way ka yartahay oo waliba xaashiyo ku darso midna aynu u raacin dadka fikirka noocaas ah aaminsan in dalkani uu ahaa dal gabi ahaantiiba burburay oo xitaa qasabadihii dhulka raacayay ee lagala baxay oo de base hoose laga soo bilaabo oo waxa ku dheer inagu markay sidaa wax u qiimeynayaan bal deeragaasan raba shacabkeena ka bogsiiyeen anigu dacaaw hadii la yiraahdo baratama dadka la meesha u joogay nabci labadeenu ba tartamayna marka haddaan ka dheereeyay haddaan gaabiyo taasuban miisaanka saaraya wardeena xamar baynu kala go'nay ama say Soomaaliya dhulkii la oran jiray ama koonfurnimo soo yaqaano maanta qof kasta oo ka yimaada dad Soomaaliyeed badan ba halkan soo mara mid wali wuxuu leeyahay ilaahay ugu mahadnaqa halka aad joogtaan halka aynu joogno 100 meelood hadii loo qaybiyo ma joogaan marka waxaan fahmayaa dadka hadda goorayha maxaynu haynaa wixii ay doonayeen warda Jarmal lama inaan tirtamay iyo Mareykanka laakiin uu dhoofno qaxooteen ku nahay dalkii aynu kala go'nay halkeenu ka joognaa waa su'aal Djibouti oo dhinaceena dawlad yar xataa lamaynu tirtamayntii hadda oo dawladda jirto oo la aqoonsayo 30 jira marka 25 sano iyo wixii Soomaaliland u qabsoomay alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahayna ugu sii wado waxana shacabka u sheegay in kastoo dardaaranku u dambeeyo reer bani Israa'iil quraanka in badan bay ku dhiganay waxa lagu rogay ama ilaahay had iyo goor quraanka marka dhageysato lagu soo celcelinaya waa qirasho la'aan nimcada ilaahay marka qofkii isagoo isla nimco ku xumay ama xaasho haqirin wixii jiray ilaahay baanu qiraynay ilaahay ma hadii uu siiyay nimcadii waxaan alxamdulillah rabbil caalamiin dal ku jira waxaan aad u qirayaa horumarka dhismaha ee dawliga ah waxaan qirayaa horumarka dhismaha ee dadka private leeyihiin waxaan aad iyo aad u amaanayaa hay'adaha isgaarsiinta ee telefoonada loo kala iyo waxa weeye qofka jooga caawa magaalo kasta adduunka ugu caansan ama London ha noqoto ama Washington ha noqoto ama Australia iyo inanka jooga masallaha caawa jooga ama jooga jigjiga yar isku wifi iyo wadaagtay xiriirku sidoo yahay lama soo koobi karo waxaan aad u taageerayaa
waan aad u arkay wacyigelinta culimada dalka oo kow ka noqonaysa inaanay diintii ilaahay baray si khaldan meelaha qaar dhibaatada haysato kale aanay inoola dhex geline ay si fiican oo caqliga oo waaciya had iyo gooraale inoola daba joogaan dalkana dhisaysa dadkana dhisaysa guud ahaan markaa wax aan anigu imaka dee waa waxa ay joojiyey oo aad iyo aad dadkii qurbaa ka yimi waxay la yarayaabaan markay ma noqonaysaan dhahdo maya laakiin waxaanay ogeyn wardi halkan baqdin baan uga tegey baqdintii ma jirto waxaan aad u ammaanayaa askarteenna booliiska ee checkpointska taagan magaalooyinka gudahooda iyo dabaddaba ee sita Kalashnikovkii dadkan lagu dhibi jiray tolma qoriga miskiin noqday baan ismso qofka qoriga meel waxaan kii berigi hore dadka halka laga qaban jiray ee inta si yaro fiican oo edeb leh oo waliba khibrad ku jirto kuwa baaraan haddana aan dib ku geysanay habeenay maalin u taagan daryeelka nabadgelyada ilaahayna ha sii kordhiyo way xaashi kulli waynu go'go'san doonaa sheekadeena caawa waan yara hadal badnay raali ka maya waxa weeyaan waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo markan waxaynu galnay maxaa diiwaangelin dhammaanba gobolada galbeedka iyo maxaa la dhexdaba aynu ka soo galnay hadda barigii ayay maraysaa Sanaag waa la maray hadda Sool bay taagan tahay Sool iyo guud ahaanba degmada Buuhoodle oo imika laga bilaabayo dhawaan taasi sidee kula muuqataa ma oran karnaa waxa weeyaan guud ahaanba Soomaaliland maanta waa mid meel baan wada jeedaa runtii diiwaangelintu waan arkay doodo badan oo ka galay oo adduunka horta qolo waliba wax ku sheekaysataa marka meelaha la fadhiyo ama maqaayadaha la fadhiyo koofi la cabay ama qaadka halkan la habo la cuno faalo badan baa dadku galaan faalada dadka qaar waxa ay haystaan dib iyo ceeb oo waxyaabo Soomaaliland ku dhisan tahay waxaad moodaa inay dadkeedu iyadoon ciidamo u dirin talaabadii la qaadayaba ku soo jilciyaan xagga hoose dabadna la isfahamsiyo iyadoo la isla fahamsan yahay ay socoto diiwaangelintu waa waxa kala sooca horta koow qofka muwaadinka ah iyo qofkaan muwaadinka ahayn adduunkan casriga ee loo gudbay magaalooyinka lagu nool yahayna diiwaangelin horta waynu lahayn nimcay markii hore sideedaba diiwaangelinteena waxa hayay cuqaasheenna oo qof walba caaqilkiisu wuxuu hayaa inta reerkaasi ka kooban yahay dabadna isu geyngeynta tiibariga xitaa ingiriiska oo kale markii laga hadlayay tirakoobkeena waa number 1 aad isu geynayso waa mathematically way fududahay laakiin waxa loo gudbay adduunkan magaaleynta urban society la yiraahdo oo waa la degay degitaanku wuxuu ka keenayaa adiga yar jaar waxa noqonaya mid kale oo isku caaqil baahay isku danana waa noqonaysaa diiwaangelintu waa base-ka horta waxa kala saara muwaadinka iyo muwaadin la'aanta maaha arrin doorashada oo ku taxalluqa sida in badan dadkeenu fahmeen doorashadu waxa diiwaangelintu waxa ka mid tahay waxyaabo doorashadu fududeeya laakiin doorasho looma samaynayo kaliya muwaadin inaad tahay iyo muwaadin ay cadeynaysaa waxa kale oo cadeynaysaa hadhowto tira soo baxaysa tira koobka xaafadaha tan malaa'imka xagga beelahaynu ka naqaanaay waa tiyaynu u rogayno waxaashay nimcooda ka isku xaafada oo isku leyd u baahan isku biyo u baahan waxaasoo dhan halka hadhow laga xisaabinayo ay diiwaangelintu noqonaysaa iyasa la isu diiwaangeliya marka runtii waxa aad u la yaaba diiwaangelinta Soomaaliland maanta ka socota anigu commissionka nimanka ah baan aad u wareystay oo asxaabnahay meeshan si alla u socota horta Soomaaliland adduunka umalayn wali meel ay ka dhacday oo Afrikada madow iyo dalkan ay naqaano dawladaha imika ee sheeganaya ama ahbel ilaa eragana aqoonsiina wareeriyay diiwaangelin isha qofka intoo la qaado aanu qofkii ku noqon karaynin yimaba jirto taas horta oo horumar dadkeena diiwaangelintu waxay taraysaa hadhowto oo leysa kororkii dadka waxa noqonaysaa ilbaxnimo qofkii hadhow wuxuu yeelanayaa kaarkaas lagu xisaabtamaya bari dambe waxa dhici doonta inaan hadda dambi gasho meel kale laga raadinin leedahay nimco kaarkii numberkeedu intaas oo ah waxaasay samaysay hal la socdo oo sida qurbaha hadii dunida ka jirta wali dawlada xagga laga socdaan waa telefishinka qaranka Soomaaliland gaar ahaan barnaamijka garwaaqo
حشي وحنا اللي فرحسنها إن عاوة كان يو وقتي أنا أصلا لما من برنامج كسمينا إن الجزء مثلا أنا وحب الجيران جايو عادي عادي أنا فرحسنها oo aan dadsidaada fursad u helin programka nagu socdo hadaan inta kaga imaado ashiyo waxa dhawaan golaha wakiilada ee Soomaaliya iyo aansiiyay mashruucii magaalada Berbera gaar ahaan dekada lagu daryeelay sababtiisii sidoo aragtay dadka qaarkood waa ay ku kala aragti duwanaayeen oo bulshada qofka qaarba dhinacbay maaragtay ay la kaceen adiga siyaasi ahaan arrinkaas siduu kula muuqday ama mas'aada mustaqbalka dambe uu kula muuqdo mar haddii la ansixiyay horta arrin wanaagsan oo inoo dhacay ayuu ahaa waxaan ku hambaleynayaa cid alle ciddii dadaalkeeda lahayd isla markaa haddana waxaan ku hambaleynayaa cid alle ciddii ka soo horjeedayoo ka soo horjeedku muu ahayn mid si kale ah أنا وحنا أكون قف إصلاها قف على الحشة لون هيسون ملا إصلاها لو حبوا البلاك اللي قلنا ما هي الملاد دكتي نبى القاضي ياهو لما هم هذا هروب بدي بتشوف تبرج هنا وقالوا كل مرة بروح جوا وبقى هذا كوين يوم حياة الجامعات النور السنة يو اللي كان حصل وقت يعني وكيل بحذ هنا إن وحدات قدر سنكرتان ملا وقعدي واساسك استهول على قولة دي دنا نور هم بلينا يا qolooyinkii taageersanaa dawladdu ugu horeysay dadaalka ay u gashayna waan hambaleynayaa baarlamaanka Soomaaliland aad baan ugu hambaleynayaa runtii oo dad badan ku aflagaadeeyaan oo waa la mustafeeyay ereys ka jiljilasan qofku damarka wixii sidoo mid baan u soo noqonaynaa heshiiska imika hadal kama taagnaa shaygu inta aanu sharci noqonin aan weli laga wada hadal ama laga fadhiisan ama hay'adaha awoodda u lahaa aan u gaarin dood ba ka furan dooduna waxa Soomaaliland ku dhisan tahay laakiin ninka doodaya waa inuu ogaadaa hadday tiisa noqon weydo oo waxaynu dimuqraadiga u sheeganayno oo waxa islaamku ogol yahay shuurada waxa loo wada tashadaa in nimco waxay diidaneed lagu qanciyo xataa haddaanad qanciyo diidan tahay dawaa laga hadhaa mar haddii wixii ka runtii wuxuu ahaa heshiis aad iyo aad u qiimo badan meel suuqan ka tusayaayo imika haddaynu telefoon isna hargeysa soo diray inagu dibadda joognaa ya 2522 ba ka horeysa waa area code kale nagu yaqaano imika kambaniyada telefoonka kale oo taqaanaa Telsom kale 63 ba ka horeysa Somtel kale 65 ba ka horeysa waa waxa kala soocaya labada tan waxa ku leeyahay dekada Berbera abtirsiinay leedahay حتى هدي أبترسينه هو كتشرتي الصومال هذا الكلام بحنا بينو كتشرتي مركب بورد كورس كيو حال استعماله لكن عاو حنو لنا أبترسينه عصوبة قول لي لا دي بي ويل بينسكو قو نقولنا عاو حفظوا لنا صار استراليا هذا استراحة كاميرا ده في لوجو اللي نقدر دوبه وكلا كصوتي والشريطة بربرة ما كلا بارل لوجو يرى يقين عاو meel alle meeshii dhiibi wax ka soo dirto kun bad geynaysaa oo Berbera waa la yaqaanaa ab iyo isir bay leedahay way abtirsatay waayahay hashiyo in hawla si hadalka ma qalma waxaad ka rajeynaysaa haddii sida maxaan idhahdaa laynoogu sheegay ay u hirgasho oo shaqaalaha kordhaya iyo maaragtay dhaqaalaha inoo soo kordhay iyo dhinacada inoo soo kordhay haddii sideeda u hirgasho waxaan malaynayaa rajadu nama foga Berbera oo xayran baynu ka dhargi weyn ya Soomaaliland oo dhan maanta ilka loo dhaqaale may jirin oo waynu ka warhaynaa haddii intii aynu ka heli jiray dee ilaahay wuxuu noogu soo daro oo sidaan rajaynayaa oo sida runtii heshiiska ku cadayd ahay horta waa nimco ku sugo waxaan ognahay Berbera arrinkeedaasi haddii aanu ahayn arrin inaga waxtar inoo ah xamar ba taageeri lahayd anigu waxaan fahmay waxa xamar oo diidan iyo inta la diidan day isu geeyay ma garanaysaa miisaankayga aan markas kuma ka qaataayo anigu nimanka hadii aan walaalaha inaan kala baxnay oo geed dheer iyo geed gaaban ba u fuula haddii la yiraahdo gaari ambulance la siinayo Soomaaliland runtii caqabad ku ah
qaylada ay ka qayliyeen baa igu filaatay laakiin waxaan iyagana u sheegayaa dalkan aynu walaalaha nahay dariska Djibouti aan u sheegayaa horta inagii Djibouti waa guul inoo soo kordhay وعاود كده Djibouti wixii ay qaadi weydo marka berbero hagaagsan jirto way u soo leexin karaan inaguna iyaga waa inuu ka yarahay haddii qaadi karo weyno dawin u duu horta halka waa weyn waa guul iyo guul Ethiopia inagu dhex nooleen way ka faa'iidoodeen walaalaheen oo jaarkeen qolada xamar waxaan u sheegi lahaa iyagana iimaan alla uu buuxo horta leeyahay hababta inaanay u arag dawladnimada iyo jiritaanka inay ku dhismayaan caqabadaha ayna hor dhigaan oo runtii ma rabo qof weyn ahaan inaan hawada u mariyo asxaab badan oo aan ku leeyahay laakiin waxa cad tan iyo markii ay qaateen waxaan ay ku sheegaan aqoonsiga Mareykanku siiyay markii hore wax badan ay ku qabsan lahaayeen waxa ka habsaamisay ku horjoogsashada Soomaaliland madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siraayo dhawaan u sameeyay in golihiisa xukuumadda uu isku bedel ku sameeyo isla markaasna mas'uuliyiin cusub uu ku soo daro arrintaasi sidee kula muuqatay xaasha horta nimcooy waa run madaxweynaha Axmed Maxamed Siraayo Jamhuuriyadda Soomaaliland waan ixtiraam badan u hayo mid waa aragnimo mid odaynimo si kastaba waan salaamaya isaga gaar baan u salaamaya isku bedelku horta waa sunnaha ibn aadanka oo aragto inaan gurigeedii joogto oo aroosada ayaa ka maarmooda sariirteena kulba dhinac u qaada hada sariir cusub ma imane isbedelkaas macna sameynaya marka anigu sidayba isbedelka horta waan jeclahay madaxweynuhuna isbedel runtii intii isbedel la arkay lagu diirsado ayuu sameeyo waa markaan ka eego culayska uu saaray ilaa dad walaalo isku wada midayno meeshan wada doonayeen gobolada bariga ayaan aad iyo aad ugu ammaanayaa waxaan u hawo isbedel loo baahnaa waxaan leeyahay madaxweyne ka sii kordhi waxaan leeyahay inteenan galbeed joogtaa arrintii bariga naga maqleed baa imika inoo imanaysa inaan noqon martida hore martida dambe ka naxdaaye sidaynu walaalaheen u soo dhaweyn lahayn aynu wanaaggan aynu had iyo goor ku hadalhaynay u tusi lahayn ee wanaagga ay ka waayeen meelo kaloo badan ay eegayeen aynu nooga arki lahaayeen aynu ku soo dhaweyno hadalkii madaxweynuhu xalay ka yidhi laascaanood ee ku saabsanaa cali khaliif dartii cali khaliif waxaan hawada u marinayaa salaan shakhsi ah oonu isku wadanahayn aanu war badan isu hayno aanu in badan ka sheekaysanay sidii la isugu iman lahaa runtii goobo badan oo laga hadalhayn jiray aan ka difaacay calina waxaan leeyahay adeer buu iigu toosan yahay salaam baan kuu soo dirayaa waana ilaahay ha isu keenkeeno madaxweynuhu waxa uu tan iyo maalintii uu xilka qabtay waxa uu gudinayay gobol nabadeed oo uu ugu baaqayay walaalaha bariga Somaliland iyagu inaga maqan goboshaasoo marba soo maraysay marba heer taagneyd maanta gobol ayaa taala wada hadallaa socda waxa jira tallaabooyin hore loo qaaday oo guul leh oo lagu diirsado kuwa ka waran runtii nimcooy gobosha madaxweynuhu dhigay bilowgii uu qabsadayba xukunka aniguna marba haddaan ahaa dee taageerayaashii kulmiye ee runtii dee ugu dhadhawaa baan isku tiriyaa dareenka madaxweynaha oo runabay ka tarjumaysa in bari nabadi ka dhacdo waxaase waxaba ka weyn ilaahay amarkiisaa ka weyn wax waliba markii ilaahay ugu talagalay ee uu aqbalo ay suurto galaan waxaan moodayay maanta inaan ku arkayay meelaha warka dadku isku weydaarsadaan 25 Oktoobar in loo ballamay gogol loo dhan yahay oo burco ka dhici doonta waan arkay madaxweynaha oo hadalkiisa laascaanood ku daray inuu hambaliyeeyay heshiisyadii hordhaca ahaa ee gogosha ka horreeyay waxaasoo dhan waan soo dhaweynayaa waxaanan si dhaba u ogahay ummadda ciidamo dhaqan bay leedahay marka aynu tilmaantaba saaro beesha bariga ee maanta gogosha loo fidiyay amba khaatumo dadka qaar baa magaca khaatumo ka didee waxa walaalkaa ku walaaloobaysaan walaalkaa ku yidhi haddaan kula imika aniga xaashi baa la yidhaah
hooyadii cumar bay igu darto islaam loo magac bixiyaan haddaan kula nimcay xaashiga iga daayo cumar igu yeedh inaad ila muranto waxa ka roon inaad cumar igu yeedho inuu markaa wax wada qabsano markaa magaca khaatumo gogosha loo dhigay aad iyo aad baan soo dhaweynayaa ilaahay amarkiisana waxaan ilaahay idinkiina waxaan ka rajaynayaa Soomaaliland oo isu dhamaystirantay habeen xalay iga farxad weynaa markii madaxweynuhu laascaanood joogay ma jirin sababtoo ah waa Soomaaliland isu dhan intayna wada hadal cid kale la gelin cid kale aynaan is erin innaga u baahan inaynu gurigeena nadiifsano dhulkana gurigeena uu kamid yahay waana soo dhaweynaya waana taageeraya way xashiyo gabadhii waraysigeena barnaamijkeena ayaynu taaganahay talo iyo tusaale iyo toosin intaba maxaad kaga fiilahay guud ahaanba shacabka reer Somaliland ee barnaamijkeena la socda waxaan runtii ilaahay baa talada horta ilaahay waxaan ka baryayaa inuu talada xaq ah inuu waafajiyo waxaan kaloo ilaahay ka baryayaa weli qof Somaliland diidan ama baabi'ada ka shaqeynaya maan arag haddana is dhaaf yariyo ayaa jira taasina waxay ku timi war xumaata shiilka waxaan oran lahaa horta anigu hal formulaan leeyahay waxa la yiraahdaa xaqiiqo raadis meesha aan war ka maqlo anaaba soo taabtay waxaan lahaa horta ilaahay iimaanka ha inagu wada sugo ilaahay dalkeena waa nabad wax ka weyn ma jiro dad badan oo aniga xagga hore ku bilaabay maxaynu haynaa ilaahay war ilaahay nabad baa laga baryaa nabad kadib baa la socdaa horumarna dalka uu ka jiraa in ilaahay noogu wado waxaan oran lahaa waa shacabka Soomaaliland waxa ku cusub waxaan berigii hore ku aqoono markii hore mala dawladahaynaan aad u aqoonin dabeedna sidii wax xil aynaan diyaar u haynin nagu soo fakado dawladnimadeena inaga inoo timoon marna gacanta inoo gelin Faysal Ali Waraabe gudoomiyaha cid baa aad uga sheekeeya waa runtiisa dawladdu barashay leedahay waxaan leeyahay waqtigan markaynu haynayna waa barasho maalin walba waxbaynu ka gudbayno wax la inaga barto caalamku inaga qaataana sidii uu sheegay maalin la waraysanayay Musabbix gudoomiyaha kulmiye South Africa baa lagu dhigaa guurtadan laga ciyaartayna la waxaan oran lahaa waa boqorta inaan ku hadlayno maynaan ahaan jirin dawladda ayaa loo magacaabay rishafalkan idaacadda aynu wada sugayno ama madaxweynaha hortaayno 7 goor sameynayno inaan ku mashquulin anigu hargeysan jooga dawladna uma shaqeeyo macnaheedu ma aha xil ma hayo nimciye oo marmar baan markaa la kaftay aniga la xildiid xil aan diido horta la igu yeeray ma jiro taa dawladda ku ceebayn maayo laakiin waxa diyaar haddana uma ihi xil dawladeed inaan qabto sababtoo ah waxyaabo badan markaan eego mas'uuliyadda ma ka soo bixi kartaa dadka baahan ee Somaliland iyo dalka dhismaya ma ka jawaabi kartaa waxa iga soo baxday maya xaasho inta noqon lahayd qof xilkiisa ergan xildhibaan xilkii aan gudanaynin malaha waxa ku hawl yar adoo taada ku koobnaa xilkana sidiisaba ilaahay baa marka horeba qof walba xil saaray waborta kii ilaahay ku saaray ku soco way ii shaqaysaa maalin walba talaan bixiyaa wanaag baan ku jiraa aniga faraxsan soo ruuxa waxaan loo qof walba dhaliisha badan ama markaynu dhaliisha sameeyno xalkaynu daba dhigno oo yeelan dhaliil ku nool hadee waxa la yiraahdaa garti cilkayeesha rag ugu liita haddii uu garteena dhaliilun ka yeelano wax kastana waqti ay tabtay ha sibirkan waxaan ugu siibtay dawladdan hagaajinay aqli maaha dawladdu waa shicibka war dalkan cidii lahayd inaynu nahay hay naga muuqato qof walba waxa dalka gelin karto geli aawa silaaya jooga uu tag barta mid kala iman sidaynu maanta u shaqeyno bayno maanta qoriisu dhiibkii ka soo bilaabay Cabdiraxmaan Tuur aynu halka ku maraynaa shacabkayga intaasaan kula dardaarin lahaa TV-ga qaranka waan ogahay hawl badan baa hortaala wuxuu la dagaalamayaa social media u badan kuwaynu inagu leenahay anigu waxaan dadka aad iyo aad media u tixgeliya daawada runtii waxaad moodaa Somaliland inaan lahayn cadow aan ahayn inaan ka yaray kamarada sita moodayo inuu aniga ila hadlayo kaliya iyo xataa keebilada ka hawl gala Somaliland private-kii waxaad aad iyo aad ula yaabaysaa marka ay 9 item oo warahayaan ay Xasan Sheekh ka horeysiyeen madaxweynaha kama dhacdo xamar
أي إسماعيل عمر قال لك ورسين مدحونا كمان على جيبوتي وأنا ودنيات صلا لقول الصو أينو برنو حاجة تعليم تحتها هلا قدروا وإحنا ليه باتريوتيزم أما ناشناليزم هلا إسكول ده دي بهلا قلنا dadkeenu ka xanaaqaan waxay dhahaan guulwadanimo waxa la sheegay xildhibaanada nooc lagu guulwada tooro waa banu soo dagaalan anna halkiisaasan taagna war guulwadanimo dad wadan jacayl horta khalada ka fahmina jeclaada wadankiino guulwadayaal u noqda ayaan idin leeyahay caawa miidiyaha ugu hiiliya meel kastoo aad maaragtay war miidiya baa ugu daran marka TV-ga qaranku dagaal buu ku jiraa waan ogahay waxa ku furan intaasoo furan waa ku furan إلهي دجال كهيدين حول يريو ودهان وانا السلام يا ودهان وسارد وفافين توان سلام يا وكسي كورين كريسا كسي كورنيه أينو نقول دل أينو أرجنا دل اسمه أباحن لكن مودين دل كركة يعني كل سود دقيقة أنت سنة روح الموت أدو ما تنتي أيدي كنا أدو ما تنتي شارس كا استسين إن أنت تذكر الله الله هلفتي ما هو حياري gabagabadii barnaamijkeena waxaan u mahadnaqayaa martida barnaamijkeena toddobaadkan mudane xaashi ismaaciil waxaan sidoo kale mahad ballaaran u naqayaa guud ahaanba daawadayaasha barnaamijka garwaaqso iyo intiina imikaba barnaamijka la socotay ee waqtigana siisay sidoo kale waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo kamaramaanka iyo dhanka farsamada oo uu caawa inoo hagayo maxamed deeq axmed cali daawadayaal tan iyo intaynu barnaamijkan lamida ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo Sociedade na